gudaha ruushka magaca dalkeena qadarin badan ayuu ku leeyahay waayahan dambe haddaba sabab ciidamada ruushku waxa ay leeyihiin guutada Soomaalida oo ah kuwa ugu saameynta badan dalkaasi lagana cabsado guutadan loogu magac daray Soomaaliya waa mid kamid ah cutubyada militariga ee Jamhuuriyadda Shacbiga Donetsk ee Ukraine guutada Soomaalida ayaa la sheegaa in ay ka dagaalamayaan jiidda hore ee dagaalka lagu go'doomiyay warshada birta Ukraine ee Azovstal halkaas oo lagu tilmaamay difaaca ugu dambeeyay ee dalka Ukraine iyo magaalada Mariupol kooxdani waxay dawladda Ruushka u gacan galiyeen magaalada Mariupol oo muddo dheer ka socday dagaal la isku mari waayay kadibna waxa ay ku laabteen halkii ay ka soo baxeen taas ayaa ku cadeyn karta awoodooda iyo sida meelaha lama galaanka ah loogu diro sababtii loogu bixiyay magaca Soomaaliya ayaa isweydiin mudan oo aniga iyo adigaba inaan ogaano muhiim noo ah Somali Battalion ama guutada Soomaalida sababta magaca loogu xushay ayaa lagu tilmaamay inay salka ku hayso afar arrimood in ay ku dayanayaan kooxihii burcadbadeedka Soomaalida oo jiha iyo saldhig sax oo loo raac lahayn 2 in iyagoo aan hub casri ah haysan tababar sarana aan qaadanin ay dawladda la dagaalamaan 3 in labis ciidan ama darees u gaara aysan lahayn sida maleeshiyaadka Soomaalida waa waqtiyadii magaca ay la bixeen 4 in dagaalkoodu uu yahay oo kaliya midka loo yaqaan ku dhufo ka dhaqaaq calaashan hadaf la'aan arrimahan ayaa loo cuskaday in Soomaalida ay yihiin dad geesiyaal ah oo iyagoo awood badan aan haysanin u babac dhigi kara quwado waaweyn sanadkii 2014 waxa kooxdan aasaasay Mikhail Sergeyevich Tolstoy oo loo yaqaan Gifi kaasoo noqday taliyahoodii ugu horeeyay sida ay sheegtay warbaahinta Ukraine ee News Gifi iyo Arseny Pavlov oo loo yaqaan Motorola oo ahaa nin gawaarida dhaqi jiray oo ka soo jeeda Ruushka markii dambena aasaasay kooxdan loogu magac daray Motorola oo ka koobnay 200 oo dagaalyahano waa kuwa hadda magaca wadankeena Soomaaliya watee ayaa iska kaashaday inay magaca guutada Soomaalida u bixiyaan ciidankan caaboon dhowr sano kadib sanadkii 2017 Gifi waxa lagu dilay gantaal qorsheysan oo lala beegsaday isaga oo xafiiskiisa ku jira isla goobtaas ayuu ku geeriyooday sida ay shaaciyeen warbaahinno kala duwan oo kamid yahay wargeyska The New York Times guutada Soomaalida waxay kaloo ka qayb qaateen dagaalka ka socda Donbass ee ka dhanka ah ciidamada Ukraine daawade in geesinimada Soomaalida darteed loo qaato magaceena sidee bay kula tahay adiga haku daayo walwal dhammaan adeegyada duulimaadyada sida tigidhada iyo fiisayaasha waxaa idin diyaarisay shirkadda adeegyada duulimaadka Sunset Travel Services